shirka tiknoolajiyadda muqdisho oo sanadkii labaad la qabtay waxaa daahfuray ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed qadar kaas oo socon doona muddo 3 cisho ah waxaana ka qayb galay wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish mas'uuliyiin kala duwan iyo ururada bulshada rayidka ujeedka shirkan tiknoolajiyadda ayaa ah mid lagu xoojinayo taageeridda hal-abuurka dhalinyarada iyo wax soo saarka beeraha maalgelinta dhismaha guriyeynta Muqdisho waxaana madaxda shirkadaha iyo ganacsatada ay goobta ka balan qaadeen in ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada garab istaaga shaqo abuurka iyo baahinta tiknoolajiyadda qaar ka mid ah madaxda shirkadaha ganacsiga oo shirkan ka qayb galay ayaa balan qaaday in ay diyaar u yihiin maalgelinta hal-abuurka dhalinyarada iyadoo shirkadda Hormuud ay balan qaaday in 5 milyan oo dollar ay ku bixin doonto shaqo abuurka dhalinyarada 3 sano ee soo socoto 3 sano soo socota inaan ilaa 3,000 oo shaqaale cusub aan sameeyno isla markaana aan abuurno fursado shaqaale si dhalinyaradu ay maartay shaqo u samayso iyo dadka aqoonta leh inaan 5 milyan oo dollar 3 sano soo socota aan diyaar u lanahay inaan ku invest gareyno dhalinyarada xafladan waxaynu ku dhiiri gelinaynaa hal abuurka tiknoolajiyadeed ee dadkeena hase yeeshee mar haddii kolley shirkadaha loo yeedhay waxaan in yar ka tilmaamayaa shirkadda Daabshiil Group oo runtii ka mid ah shirkadaha waaweyn ee dalka waxaan diyaar u nahay sidii aanu 30 sanaba uga qayb qaadanaynay inaanu uga qayb qaadano wasiirada ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya ee shirkan ka qayb galay ayaa tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay xoojinayso qorshayaasha shaqo abuurka loogu sameeyo dhalinyarada iyo maalgelinta hal-abuurka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish waxa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir iyo bulshada reer Muqdisho ay muhiimad gaar ugu fadhiyaan hal-abuurka iyo sidoo kale maalgelinta shaqo abuurka magaalada Muqdisho waad ogtihiin burbur badan ayay soo martay walina meelo badan oo kamid ah way burbursan tahay hadafkeenu wuxuu yahay dhammaan goobaha burburay inay burburkii ka soo kabtaan oo taasna anaga aan sabab ugu noqono meel kasta oo foolxun oo burburtay inay noqoto meel dhalaalayso qurux dadaalkeedu waa socdaa waad ogtihiin marar badan waad aragteen wadooyin burburay oo la dhisay oo la furayo wadooyinka la dhisay iyo kuwa la dhisi doono intuba waxay qayb ka yihiin tartanka qayb kasta oo bulshadeena ka mid ah laga rabo annagu marka kaalinteena tartanaan geli doonaa mana rajaynayno inaan idinka liidi doono qaybihiina nada dadaalkooda ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa la dardaarmay dhalinyarada Soomaaliyeed dalka idinka iska leh shaqo weyn baa inoo wada taala shaqo weyn baa gaar ahaan idinka idin sii taala waayo 50 ama 60 ama 100 ku dhawaad sano ee soo socda dalka idinka u aayaya idinkaana marka waxaan leeyahay halka kaga sii haya cudud iyo maskaxda isu geeya ku tartama fikir iyo hal abuur ha ku tartamina qabiil ha ku tartamina gobolaysi waxa ku tartantaan seennu isugu nimaadnaa fikirka isugu darnaa waxna u qabsanaa horumarna u gaadhnaa daafurka shirkan kadib ayaa madaxda qaranka waxay kormeereen bandhiga hal-abuurada Soomaaliyeed iyo shirkadaha ganacsiga kuwaas oo goobta ku soo bandhigay waxyaabihii ay hal abuureen ee u baahan in la maalgeliyo si loo xoojiyo shaqo abuurka bulshada Soomaaliyeed Nuur Saciid Haliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.